marka dhowr sano ka hor baan daraaseeyay oo baaritaan ku sameeyay waxaan baaray nimanka la yiraahdo mustashriqiintan ka bilaabay baaritaanka waxaan ku xajiyay nimankii la oran jiray tabshiirka ee gumaysaha soo hoos raaci jiray wadaadadii kaniisadaha waxaan baaray calmaaniga iyo meeshu ka yimi aqlaaniga nimanka la yiraahdo casraaniyiinta la yiraahdo nimanka la yiraahdo cibaadiyiinta hadii la yiraahdo horta san u tiriya inagu calmaanigan iyo aqlaanigan waxaan u leenahay waa kuwa imaka uun maqmaqalay halkeenani intaas soo kale oo aynaan maqal ama ina soo gaarin wali ayaa jira waxyaabana way ku kala duwan yihiin waxyaabana way ka siman yihiin qoliyaha galbeedku waxay aad ula dhacsan yihiin marka waxaan la eego nimanka la yiraahdo casraaniyiinta kuwaasi soo dhaweeyaan way casraaniyiintu waxay aaminsan yihiin in diinta la waafajiyo casrigan la nool yahay oo waxyaabahan la gacanta la gooynaya iyo shaabug baa la dhacaya iyo dhagax baa lagu dilaya iyo waxyaabaha laga saaro marka qoliyaha reer galbeedku waxay yiraahdaan nimankan waa okay waa niman furfuran oo casriga la jaan qaadi karaya iyagu way soo dhaweeyaan marka almaanigan anigu markii dambe ku soo biyo shubtay iyo aqlaaniga almaaniga kullina waa laga hadlay taariikhdiisa iyo sidoo ku yimi maansadaydana waxaan u bixiyay ba almaani ayaan u bixiyay waxayna xusuus mudan intaana soo bandhigin bariga aan xaf kulanka sameynayay dagaal baan ba Facebook anagu dhex maray sidii marka uu sheegayay waxay ku xoogan yihiin qolyahani Facebook iyo adigu tiknoolajiyadan qof imika hargeysa way buuxdaa laakiin qof aad arkayso ku oranaya almaani baan ahay oo aqbalaya ma jiro ama aqlaani baan ahay wax kale laakiin kugu shabahaya jaacada hargeysan xafladda ku qabto waxaan astaa gabadh igu tiri su'aal weydiisay igu tiri almaaniyiintu xaafaday leeyeen ma jirtaa way degan yihiin lama ba arkay Facebook ma ka qayliya وسؤالي dadku isweydiinayay bariga aniga laftayda si baan u fakarayay laakiin wax kale iga hor yimiyo waxaan islaa waxaan jaacadaha iyo meelaha aqoonaha ka soo fulaanay halka gal waxaan ilaa way inay jaamacaduhu bade maamuladooda iyo waxooduba iyaga yihiin dabeetana xaqana dagaal kale yaan hadana ka galay almaanigu waxa la yiraahdaa taariikhiyan markaan in yaro kooban dib ugu noqdo 1600 meelaha wati galbeedka ay shuraakoobeen wadaadadii kaniisadaha iyo boqortooyooyinka dabeetana wadaadadii waxay yiraahdeen ilaahay baa anaga dunida noo wakiishay wadaadadii kaniisadaha yiri dabeetana qofkii anagu aan doono baa boqor noqonaya kaanu ka qaadnaana waa dabeetana boqortooyadii iyo wadaadadii kaniisadaha isku xidhmay dadkii baa cadaadis la saar aqoon-yahanadii iyo shacabkii wixii wala xamili waayay shacabkii baa dagaalamay wala jabiyay wadaadadii kaniisadaha dabeetana markaas ay reer galbeedku yiraahdeen war nimankan ayaan ugu soo noqonine kaniisada ay ka soo bixin oo nolosha wax kale iyo shaqo ku yeelan waxay yiraahdaan dawladii ugu horeysay ee Almaani noqotaa waxay ahayd dawladda Faransiiska ay nimankaas xukumaan markaas ay yiraahdeen aan kala saaro iyagu say u fakariyeen markaa diinta iyo dawladnimada laakiin markii dambe maxay noqotay Almaaniyadu in la kala saaro nolosha guud ahaanba iyo diinta wadaadku waa inuu kaniisadiisa ku ekaada qofkii xiisanaya u tagaa qofka kalena aanu tagin halkaas bay yiraahdaan Almaaniyadu way ka soo bilaabantay mustashriqaana dhalay bay yiraahdaan qoliyaha ku xeel dheer way soo socotay waxay yiraahdaan islaamku waxay ka soo gashay dalka Masar ayaa ugu horeeyay dalay ka soo gasho anna waxaan isiri markaan wax baadhayay dal ay xukuntana malaa waxa ugu cimri dheeraa wadanka Turkiga way dhowr 7 sanadood bay ka talinayeen ama 8 sano dhow ordunkaaga imka jooga mooyaane intii ka horeysay waxay ahaayeen waa nimankii gaaray inay bedelaan ba ilaa eedaanka ilaa iyo wax walba ay bedelaan waxaan xasuustaa halka aan yar dhaxgaliye qaar baa imka jiray yiraahda iyagoo ka cararaya waxay yiraahdaan afkii Soomaaliga af Carabi baa lagu salidayo baabiiyayo markaasuu intuu soo taaga xaflada anigu badan ma arkay ayaa wuxuu leeyahay salaantii islaamka oo aan Soomaaliyeeyay yaan idinku salaamaya nabadgeliye naxariisi korkiina ha ahaato
maxaad ugu jawaabaysaa adigu marka assalaamu calaykum ta calaykum assalaam baa la yihahdaa markuu intaa ku dhahdo maxaad oranaysaa adigu ma adigana korkaaga aato markaa waxaan xasuustay oday beri xillidii jabhadaha ayaa berigii anagu aanu yaryarayn sideetanaadkii wixii ka horreeyey ayaa salaadda waxa lagu xidhan jiray usalli farada salaati duhri 4 ragcaati aadaan lillahi tacaala allahu akbar intaasaa la isdaba dhigi jiray dabeetana oday baa yidhi waan soomaaliyeynaya intaba haye oo saad soomaaliyeynaysa waxaan odhanayaa buu yidhi duhur weeye afar weeye khasab weeye waaqbaa weyn dabeetana waxaa la yidhi waayahay marka aad ka baxaysa odhanaysa assalaamu calaykum maxaad odhanaysaa de markaasu waxaan odhanayaa war ma nabad baa yani kii baan xasuustay umay shaqaynin ninkii odayga ahaa oo de ma shaqaynaysa dee ummadihii hor iga horreey baa odhan jiray ilaahay u yaqaanay intii islaamka ka hor ayaa waxay u yaqaaneen waaq ummadihii inaga horreeyey islaamka ka hor oo dhulkeena degi jiray ayaa waxay lahaayeen ilaaha qoraxa ilaaha roobka ilaaha dayaxa ilaaha arsaaqda saasay odhan jireen marka ilaaha samada ee roobka ayay waaq u yaqaaneen marka halku ka leeyahay waaq baa weyn waa halkaa almuhim calmaaniyaddu saasay u soo socotay innaga marka la leeyahay dhulka soomaalida ayaa kulliba dhalinyara u badan tihiine dagaalkii labaad adduunka wixii ka dambeeyey laba quwadood baa jiray oo loolamayay waxaa la odhan jiray bariga iyo galbeedka ama nato iyo warso qolana ruushka hogaaminayay qolana waxaa hogaaminayay maraykanka marka laba aragtiyood bay kala siteen midna shuuci buu ahaa midna wuxuu sitay dimuqraadiya kacaanku xilliga af soomaaliga erebixin bay u sameeyeen hanti goosi iyo hanti wadaag ayay yidhaahdeen qolada shuucigu nin bay soo saareen mulxid baa la yihahdaa ama diinlaawi qolada galbeedku dimuqraadiyana waxay soo saareen ninka la yihahda calmaani marka shuucigu bulshadii soomaalida ahayd wuu geli waayey diin ahaanna wuu geli waayey dhaqan ahaanna wuu geli waayey leanna maxaa yeelay shuuciyaddu de waxay ku baaqaysaa inaan diini jirin ilaah jirin waxba jirin marka dadkii soomaalida markaba waa kuwii wadaadada iska hor yimi xeerkii qoyska waa kuwii soo saaray siyaad barre khudbadeeyay rag iyo dumarkaa siman dabeetana wadaadadii baa ka hor yimi waa la isku dhacay shuuciyaddu way istaagtay xagga dhaqankana waxay dhahaan dadku waa hanti wadaago kayuu baa la geli jiray injida oo waan garanayaayo iminka suu dukaamo wax kama iibsanayo wax raashinka iyo waxaas ma jirin kayuu injidaa kayuu loo gelayaa dabeetana reerka 4 galaan oo bariisa 2 sonkora mid daqiiqa intaasaa lagu soo shubaya dabeetana nolosha way adkaatay soomaalida ku adkaatay dabeetana waa la qaadan waaya shuuciyadii waa markuu Itoobiya iyo xagga inooga wareegay laakiin reer galbeedka iyo dimuqraadiyadda iyo calmaaniga waxa iyaga u fududeeyay kaana way ka fududaayeen oo waxay ahaayeen noloshoodu way ka yar furfurayd aragtidoodu waxa kaloo fududeeyay dee isguulan baa jiray isguulankan ingiriisku inoo keenay ayaa jiray oo dabadeetana u ahaa meel ay ka sii jaan qaadi karaan saasaa calmaanigu innaga la odhan karaa meeluhu inaga soo galay ayay ahayd marka calmaaniyaddu markaan soo ururiyo waa aragti aaminsan in la noolaado nolol aan diin lahayn la noolaado de anigu waxaan arkay hargeysa ana arkay ninku yidhi waniyo salaada maa tukatido salaada maa tukatid soo caadi maaha waa erey wanaagsan soo maaha odayaashiisii buu tago ka ergey ninkaa haddana la kala gaarin buu yidhi ta ka dhacda muxuu kugu yidhi aragtida calmaanida ima taqaanaa markuu dadka weeraraya isagu ninkaasi odayaashiisii buu tagay dabeetana labadii nin baa la siiyo maxaa kugu yidhi dee wuxuu ugu yidhi buu salaadadku maxaa arrimahayga daakhiliga ah ninkan soo geliyey waa aragti waxay yidhaahdaan markuu isagu wax weerarayo imika anigu soo weeraraya waxaan onayaa ninkaayo shaacir shiikh maaha wadaad maaha maxaa calmaaniyiinta iyo baddan ka galay muxuu aqoone ku leeyahay muxuu ka yaqaanaa waxaasuu ilaahay moogta markaan ku dhahay maxaad waxaa igu samaysay wuxuu odhanayaa dee wax xorriyal qawl xaq baan u leeyahay in ra'yigayga cabiro waayi anna intii leg baan ku odhanayaa wuxuu odhanayaa xuquuqdayda shakhsigeed baad ku xadgudubtay haye isagu tiisiro waa la sax marka wax lagu yidhahdana waa marka
maanta laba ciladood baa jiro oo calmaaniga hargeysa jooga ee 70 jirka ah cid sheegata ma jirto calmaaniga laakiin way buuxaan haddana war ma shadaadiinba qof hebel yahdana male haddana waa buuxaan calmaaniga 70 jirka iyo calmaaniga 20 jirka ah ee hargeysa jooga faraq weyn baa u dhaxeeya calmaaniga 70 jirka ah ee dhowr iyo 60 wax bartay isu yaqaana laba magac oo kala jiro oo malaa idinku aydan oo aqoon oo aqlaaniga iyo calmaaniga la yaahdee idinku wana u taqaaneen laakiin iyagu magacyo kale isu yaqaaneen waan sheegay calmaanigaasi mid buu ku fiican yahay mashkaladu isaga ay ku koobanta ma faafiyo markuu ugu fiican yahay waa markay inay isla garanayaan jaanta ay meel wada fadhiistaan islaamka iyo xantaan iyo wadaadada iyo meelaha laakiin calmaaniga yar 20 jirka ah waxaad moodaa in la yiri mushahar loo qoray inta Facebook ku jira uu faafinaya isagu waa faraqa u dhaxeeya labada magacyada isu yaqaanina aan idin sheegay aqoonyahan ma maqasheen waa artan inta aqoonyahan la leeyahay inta aqoonyahan meel kale ka raadin aqoonyahan waa ninkan aan sheegayo aqoonyahan waa ninkan marka sun doonayso kanuuba ku soo biyashubaya aqlaaniga maxaa la yiraahdaa aqlaaniga waxa la yiraahdaa mufakkir bay kooreen mufakkir يعني وأنا مسكح بلارانو أنت أدوق أتكو ريجيسو أيو سقو وحكب بلاران أيو كيني ومفكر بكورنيا إن طبيعة عادها أولية علماني أتكو جران كرايسو وحكميدا إن كستو قليها كحاشة دير يرخف في يوم يرادان علماني نسبة يرتشلوه مدة كصير لح قلوا يسقو أنا أدفوجين لكن علماني مركل يهدو هو شعائر الإسلام كوردن مركو أركو وحخصب إنه كاتشيستو وكوفيد وخميس وقد وحلاله وحي إسلام كل شغله هذا سيف عن سوء تقانينا وكلا كفتام يقول يعني يوم ما أنت مكوي الرابط كبيرته وأمرك ولي بكو سودي رني وحكرأه وليه هاي حتى حافظ المساجد كله حلقة بينو كفوا قاعد أو ملك له وجوره وحلاله وحي شعائر الإسلام كه علمانية ويدبيا عقلان يقولنا وهو عام كويه هاي مركز حديث وشيكته وعقلي سكوا يحكون هو ضعيف آياتنا وحكورنا يا معناها أنا صارت معناها هذه ماها وحانو عام كويه هاي عقلاني إرجع لهذا يقنعي تقنعنا كرميس ونن بلايا ساعة طبعا ما الله وطده طب ما أنت بقول دمك عن كريس وحنا يكون كلا دويه عقلاني وندي تحكي يقان علماني الصومالي أنت بدي تحكي ما يقان والسبب تكينس إنه الدين تو أركب مشكلات أو عقدة أو قاعدة مركا أنكو صور دوادي ما سان كسمة يانجو ما سدا علماني بالهدا علماني قلفتي سيبان كهدليي تبى ترى مركو هرب بالشدة والله هذا ليا وحليه بالشيء هاي رجع أقون تلاها جعادة كصوب حي PhD قستي الدنيا ده أفكرنا يجي وحلقة بسنة يبان وهين annaga horumar idii hayna waxaana barbar eriyaysaa inay yaro malcaamad ka soo baxay marka labaad uu shacabkii ku yiraahdo ayuu haddana isku rogaya wadaadadii wuxuu leeyahay kitaabkan iyo aayaadkan iyo axaadiistan iyo dawladda iyo nolosha casriga ah iyo siyaasadda midna ma soo galaan xaqa kala timaadeen saas uu hadlaya laakiin haddana aanu baa u jawaabaya isaga waanu nasteexana waxa leeyahay war fircoon baa ka horeeyo qaaruun baa ka horeeyo inan kasto isbaala ودريده وصوم رايه ما يلي ربك هرسو إيه له عقديقو ونفت هذا إدي ساسان قلنا ده سجانتو عدالة كمان تبغى نقف ورا كهدلنا جواب سنة وسينا ودين عم كبر ربهاشة مركا ما صدق سانجيل يا ميل يرام بدنا وشرح يا وحنيري أف يردقن باتشري إكيا هدان لمودان شريرة هلاقو أستين سرباب وبحلوقة ديجين حس يا أرر لجو دالين وقعد أنا الله قفين مرتدى أرهد بعد ليه وقبات سجى هو دران أنت وحن كل هذا يا قبياجة أنا أفضل ده أنا ياش أديك سده أبو دي درين لك عي أبوان هرسي تلمان الصايا أنت أنا يدعين أستعمل شران كرتا يعني بلايا ده سنسان كذا عند سي قرنية قفك الله وطو إما الله وطو أما أنا قفك سيدو الدنيا دو الصبر أبور تنين ديدنو إله لما بينين كارو
afkaar ninku doodayo aayaad culus baan arkaa ardaaguna waa xariir argeegta markaan dul sudo argeegta miyaa taqaaneen waa geed dadkii hore weysada ka qoran jiray oo biyaha macaanayso oo weysada yani marka waxaan leeyahay guri 20 dabaqa oo wax walba la dhigay oo aan ilaahay lagu xusayn waxa ka wanaagsan ardaa miigaas oo salaadii cisho intan ku tukaday weysadana ay dul suran tahay adduunka sharba ku fiday ardaala jimba u kacay aqoonna cabaa dhextaal abuurtu hankay lahayd jidkay ku agaasinayd ogaalkoodun ka dhigay abeesan ninkii yaqaan miyuu wax ku aaminaa awayti hadii la bido indhoole muxuu hagaa kuma awr lagu xidhaa ammaanku dhankee jira adoon ku badbaadaya indheer garad waa yaqaan jidkii lagu oodmayee waxaan la ilduufi karin waxaan asraarba gelin islaamku halkuu wax dhigay ajana ruuxii sitow waxaa lagu oombaxaa xareedda agtaada taal abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan yaa garanaysan abeerka ay adeentidu waa af Soomaaliga marka adigoo ay cidla amaraya aad dareento inaad beel ku soo dhawaatay ama cibaad maqashay ama koor baad maqashay ama raad baad aragtay ama wax dabeetana waxa la adeenti baynu soo galay adeenti yani beel dad baynu soo dhawaan abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan calmaanigu waa abkee halkuu ku arooraya dhankuu wax ka eegaya markay asal sheega tahay halkee odaygiisu galay awliya sharbaa jirtee ishaara muxuu yaqaan haddii xaqa lagu adimo intuu wax adeecaya adoon ma rumaysan yahay ufiya weer baa jiree aloolka muxuu ku dadi ugaaska ninkii ahaa abaanka muxuu ku falay anfaacigu waa xujee acmaasha muxuu u gaday afeef dhalan baa ka adag ariya umal buu la kacay wuxuu aabowna yiri calmaaniga baa markaa jawaabay markaa xagaad ka tibay waka wuxuu yiri akhyaarta haddaan nacdaan calmaaniga eersataan aqoonta raggii lahaa haddaa ku aleegadaan adduunka nimaan aqoon asaagii wax la qaybsanayn haddaana ag joojisaan dharaar naga eexataan galool ubaxlaa jiree adaahi ku doorsataan amuuraha aan isgelin haddaa isku aabudhaan aftahan lagu soo hirtiyo ilbixi waa yaaban yahay noloshu ma abaydin baa malcaamad nin ka soo aflaxay halkuu ka abaaraya iimaan nin ku doodaya siduu u asiibaya salaad ninka oogayee kitaab u adeegsadaa miyuu ku ammaanan yahay astaamaha dowladnimo markay wax aqoolis tahay arkaantu miyay gashaa xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay siyaasaddu waa afkaar aayaadku ma soo galaan halkaa markan maray baa nin ag fadhiya baa wuxuu yidhi maalin dhowtaa wasiir shir jaraa'id qabtay soo markaasi eedaankii isku beegmee dabeetana mid buu diro wuxuu wadaadka waxaad ku tiraahdaa wasiirka baa shir jaraa'id haya eedaanku yarkaadi inta ka baxaya shirka jaraa'id jooji buu eedaanka marka aanu kaamaan ogeyn markaan leeyahay xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay waxaan ka fikirayay uni marka wadaadadii buu la hadlayaa ninka calmaaniga haddaa ajar doonaysaan kitaabka abqaalaysaan dulmiga agoon dhaxal weyday iyo dulmiga ma oolisaan aroos ma meherisaan axkaamtu halkay lahayd asluubtan bari iqiin shareecadu aamusnayd masaajid ku urursanayd maxaa uga oogsateen habeenu abraaraysa soo dhowr iyo kontonkiiba malcaamada ugu dambeysay markii lagu daray deediin marka wuxuu leeyahay bariga anigu waxaan uga wadaado iyago masaajidka u jooga waa maxay waxaan kala ka hadlaysaa jawaab ninku aarsadaa nasteex kuma aadanee waxa odaygii la yiri markuu intaa lagu yiri waxaan ku nidhi annana ilaah waa laga baqaa aayaha waa loo tudhaa fircoon uubtuu ku dhacay ulbaa la iskaga dayaa naftuna edab bay rabtaa war naftaadan waalan edbi annaga hana soo sariiranine naftaada dib ugu noqo edbi baan ku nidhi habeen ashqaraarka ardaa lagu raagay haweenay akhyaara anfaacina keentay ayaa tidhi eega malaa ururkiinan maan laawo asqoobay arbow lagu sheegiye miyaan araggiinu intiisaba dhaafin halkaa sheeka dhaqameed baa ku jirto waa gabadhii bixisay cuna 3 yawmaan laawe inta hilibka u keentay
oday ku yiri aabaheed maxaa aaba saddex maalin nagu jiro waxay tiri adna maalin waa toon imaad 100 halaad ka qaadatay baad soo hooyatay kana waa maalin way qabaayo xolaba 100 halaad bulaayo 100 baan iga bixiyay kan kalena waa maalin oo gabadha la isku hayso isna wax ka doonayaaba saddexdii maalin ayaan aniguna tusaale uga dhigay waa xaqatan qofka nimcada ugu weyn ee aynu haysanaa waa islaamka qofka islaamnimadiisi waxaasi ka galaande waa maalin markii arah loo tartamay af iyo laba daantasheen adoonba adoon wax biday ka shana laga sii araday asoolka markay janteen naftii uska raaciyeen siyaasad ku abadarmeen qof iyo aashi hadleen bulshada amar baa ku dhacay ugaadhiday bay noqdeen sibay u asqaysan yiin rajiya amal baan lahayn ayaan kuna hiilin waa waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lumushaan ummadu dhaqaale kasta ha haysato oo hub kasta ha haysato oo ilbaxnimo kasta ha haysato waligiiba Mareykan ha is xariifiyo ummadu haday akhlaaqiyan hoosta ka dunto ummad nool ma ciiristi un baa hadhay ay ciirisay Soomaaliya wax kale ma dumin siyaad barre iyo waxan waa markay ka fogaatay islaamnimadii iyo ilaahay iyo ay ka fogaadeen ayaa karbaash rabaani ku dhacay marka marka la daraasaynayo wax la yiraahdaa hadii ummadaasi akhlaaqiyan ay u dunto wax kale u haray ma jiraan waxba ha eeganin Trump kan qaylinaya iyo nuclear ka waxaan u shubayo hoostu ka maaran yahay maanta soo ciireeyo baharsan amaantu waxay hodaa nimaan runta aaminayn ilduufka waxa yaqaan amaana qofkaan lahayn abaartuna waa qalbiga kasha laga oonbaxa iimaankuna waa yaqiin islaamkiya daacadii xaqi lagu uursamaa aqlaanigu eed ku sheeg daliilkana in u yeel anaaniyad baa jirtee asxaabta barbu inkira aqlaaniga waa taqaanin imka Abu Hurayra kale yadal soo qado aqbali maayaba wuxuu qoonay meelaha laga keenay usuushiya toobadii ujeeda kalu u dhigay aroori ninkii u baxay arma axankiisu yaal ninkii shar aloosayow aday tala ku egtahay ninkii shar aloosayow aday tala ku egtahay awooda markuu isbiday markuu axdar si dhex galay iblis amar baa ku dhacay wuxuu ku aroorayaa halkay ajashiisu tiil insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin waxa soo nimcaaba leena siimka waxa leena kar laayahay war ilaahay aanu naahno alxamdulillah naahno ilaahay aanu mahad celin insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin qabba aadmiga ku laran abaartuna waa sidii ayaamana waan aqaan halkay ku idlaanayaan aloog ninka daaqsadow artala roobaa ka da'ay warbaa iimay ka jira ogaalka inta aad ogtahay aqlaanka baan ku soo noqday maxaan leeyahay imaka deera mool waxa ka soconaya meen war u hayna saacadan aqliyaaga dil guraado imaka halkan u fadhina hadii la xujeelo aado halkan hudheelkan deera mool maxaa ka soconaya qof ku ka jawaab karay meel leena kaba jawaabayno aqliga uu leeyahay diintan la doonaya waa ka aan deera mool sekada inaga sii jeeda aan ka jawaabay marka waxaan leeyahay buurta aloog waa buur boorama u dhow artalina waa meel bariya iimayna waa koonfur inta xogaa ka jira bal aqligaaga yaraa kaasho aqlaaniyo wariga keen waanan og waxba ka keenin maay marka waxaan aloog ninka daaqsadow artala roobaa ka da'ay warbaa iimay ka jira ogaalka inta aad ogtahay intuu aragaagu yahay miyuu aasha cilmigu habeen ku ekaanaya miya aqligaaga yar iyo waxa ilaahay soo dajiyay caalamka dhan lagu maamulaya miya iskeenaya isma keenayaan abaajiga ruux ku lumay xaqu ka irdhoobaya runtu ka ilmaynaya wuxuu ehel moodaya halkay ajashiisu tiil adduunka nin qooqayow ayaama kala jiree amaanada haysasiin adduunka nin qooqayow ayaama kala jiree amaanada haysasiin maxaan ku gabagabiyay anigoo adoonnimadaydii muujinaya awood rabbi baan u qiray ergana nabiga ahaa iimaankana deeq ka weyn aadmigu weli muu hantiyin arkaantuna way caddahay xaqaa la ajiibayaa allana toobaanu nidhi